السلام عليكم. runtii waxa aad ii soo jeeday ninkan oo nin Scottish ah oo inta badan dalxiisa ah oo ku dalxiisa wadamada Carabta ayaa wadamada Pakistan, Bangladesh iyo hadda koor ku dalxiisay Soomaaliya ayuu imaaday marka inaan aad baan uga helay muuqaalka waxaan rabaa inaan taxliiq yar ku sameeyo. Soomaaliya markuu imaaday ayuu wuxuu ka arkay wuxuusan ku arki jirin wadamadii hore uu soo arkay sida Bangladesh iyo Masar iyo Pakistan wadamada Carabta duulka Carabta uu tagi jiray. bal hadaba ninkan muxuu arkay muxuu la yaaban yahay bal arinkaas aan isla fiirinaan taxliiq yar ku sameeyna walaal barakallah waa nin Scottish oo dalxiisa oo wadamada ku dalxiisa adduunka mararka qaar kood Bangladesh, Pakistan, maxaan ku dhaylaa Masar wadamada badan oo islaama ayuu dalxiis u tagay laakiin markuu Soomaaliya imaaday arinka wax ka duwan ayuu arkay xataa heer wuxuu gaaray uu dhaho Soomaaliya waxa ka mid tahay meelaha mar dambe dalxiiskayga nolosheeda damaanad u dalxiis doonin laanahu wuxuu arkay wax ka duwan wixii uu ku soo arki jiray meelaha kale marka bal waxaan isla fiirinaa taxliiq yar oo fiirinaa video muuqaalkan ku fiirinaa waxa uu dhihi doono bal isla socon insha Allah مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء siday aniga qof islaamaya oo maartay marxabeynaya oo agayga ku soo wareegaya qof salaantayga celinaya waa makaan qariib walaa shacab Soomaaliya wadad iska maartay mutasabbo fiican laakiin waxaan u maleynayaa inay dhaxdooda la isku maartay isku marxaboonayaan isku dhol cadeynayaan iyo ma garanay inay kaamirada u diidan tahay tafaaculkayga aniga u diidan mana kaamirada u diidan miya waxaan la yaabanahay dadkan Soomaalida inta badan aniga ima qadarinayaan ma igu soo hareerahay waayo meelaha qaar kood wax ku soo arki jiray wax arinkan ka duwan hareerahayga ma soo istaagayaan ma imaarataay marxaboonayaan ima soo maarataay lama qosna sawir ila aan kula galna ma dhahayaan waa dad cajiib ah u leeyahay aad iyo aad arinka ula yaabay maqsuudka hadalka aan ula jeedo ma aha qofka salaanta in laga qaadi waayo qodad islaameenahay waa qasab qofka markuu salaanta ku salaamo assalaamu alaykum wa alaykum salaam naadada waa waajib weeyaan waa shay ilaahay jalla wa ala inagu maartay waajib nooga dhigay laakiin ninkana waxa uu la yaaban yahay waxay tahay walaalayaal barakallahu fiikum macnaha arinkii kale meelaha kale markuu tagi jiray waxa arki jiray dadka aad ugu soo shumuumaya hareerihiisa istaagan kamera sawirna la gal dhahaya laakiin dadka Soomaalida dhalinyarada Soomaalida waxa arinkaas ka waayay macnaha waxay daneynayaan malab u leeyahay wax daneynayaan malab waxaan arkay aanu maleynayaa macnaha inay ila sheekaystaan inay aad ugu faraxsaneen sida darteed wuxuu leeyahay heer wuxuu gaadhay oo yiraahdo arinkan waa ka saaraya qaybta siyaaxa aan ugu talgalay adduunka inaan maro Soomaaliya waan ka saaraya sababtoo ah aad uma marxaboonin bulay marxabeyntii iyo soo dhaweyntii iyo meel walba markuu tagay adduunka kala gaariyaasha la raacayo waa arinkaas laakiin maqsuudku ma aha in maartay salaanto ay qofka in la salaamo ama gaal ahaado ama misan ahaanin ama muslim ahaado laakiin macnaha qofka makaan ku joogo makaan in la geeyo lagu soo shumin wala xasla fiirina markuu Pakistan tagay say maartay xaaladu ahayd iyo dalka Pakistan markuu booqday dadku siday ahaayeen xaaladooda ayaan fiirinaynaa isla fiirinaynaa halkan waa Pakistan feeri dadkii oo dhan ayaa ku soo shumumay dhalinyartii oo dhan telefoon ay soo qaateen telefoon selfie iyo ku kala nooc walba waa la duubanaya kuba leeyahay selfie ila gal mid wuxuu leeyahay waan ku duubanaya hadda ninkan oo kale wal feeri wuxuu leeyahay waan ku selfie ila gal buleeyahay wal fiirso selfie sawir raba inuu la galo kuwi kale way duubanayaan markaas isagu marxaboonayaan markaasay halkan way arinka uu ka waayay dalka Soomaaliya arinka wuxuu la xanaaqay ninka uu la maartay la murugooday waxa weeye arinkan oo kale waayay oo Soomaaliya ka waayay leeyahay sidan oo kale aan rabeen maartay sida meelay kale aan ku soo arki jiray Soomaaliya ku marag arinka kale ftay inuu maartay hadalka keeno Ilaahi wa inna ilayhi raaji'un marka walaalayaal barakallahu fiikum anaga muslimnimadeena aan ku faano qofka muslimka marka walaalka muslimka waa haduu muslim yahay si fiican loo soo dhaweeyo xaq weyn bana laakiin qof gaala in maartay saas macnaha wax weyn looga dhigo oo saas dadku ay maartay bal u fiirso waxa ay sameynayaan dadkan hadda waa la yaab taajub ku dhacay selfie la gal xaqna la mar waxasna la mar bay sameynayaan xaqiiqatan mana ahan wuxuu xaq u leeyahay waa ilaahay jalla wa ala inaga nakraamay bal u fiirso dadkan u fiirso sax sameynayaan day ya salaf way wareerinayaan salafna la gal baalkiina la gal ilaahay jalla wa ala bayna karaamay gaal waxaan uga baahanahay waxyaaba iska yar marka barakallahu fiikum jazaakumullahu khayr intaas aan ku soo gabagabeynaya muuqaalka ninkan waa kaas wax dhan isagii waa maartay arinkan ka waayay markuu arinkan ka waayay Soomaalidu ma dad maartay kibirka iyo maartay inta badan dadka kale wax ka dhiga ilaahay baan ugu mahadinaynaa jalla wa ala muslimiin naga dhiga waan ku faanaynaa ilaahay jalla wa ala ku islaamnimadaas ku dhinta oo maartay ku
ku khaatumeysa Allah inaga yeelo mar walba oo maartay ciziga iyo sharafta qofka muslimka ay muslimnimada ku jirta barakallahu fiikum. Assalaamu alaykum walaalayaal.